Cabdicasiis Xasan Maxamed oo ku magac dheer lafta gareen waxa uu ku dhashay degmada Luuq ee gobolka Gado sanadkii 1970. waxa uu leeyahay hal xaas iyo 3 caruur ah. waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo sarena waxa uu ku qaatay isla degmada Luuq ee gobolka Gado. waxaana Luuq uu ka ahaa macallin iskuul. magaalada Muqdisho ayuu jaamacad ka dhigtay. xilal badan ayuuna dowladihii dalka soo maray ka soo qabtay. sanadkii 2007 waxa uu ahaa maamul ku-xigeenka Furdada Xamar. sanadkii 2008 waxa xukuumadii ra'iisul wasaare Nuur Cadde uu ka soo noqday wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada. sanadkii xigay ee 2009 waxa xukuumadii Cumar Cabdirashiid uu ka noqday wasiirka gaadiidka iyo arrimaha badda. isla xukuumadii Cumar Cabdirashiid waxa uu sanadkii 2010 ka noqday wasiirka xanaanada xoolaha. xukuumadii ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu noqday wasiiru dowlaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. xukuumadii Cabdiweli Sheekh Axmed waxa uu noqday wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga. xukuumadii ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyrana waxa uu noqday wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga. waxa uu u tartamay gudoomiyaha baarlamaanka waxaana uu noqday wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha. Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. waxaana hor yaalla caqabado badan oo ay ugu horeyso xaqiijinta ammaanka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidii uu isugu furi lahaa wadooyinka shacabku dhibka badan ay ku qabaan ee u dhaxeeya Muqdisho iyo Beedhabo oo qaybo badan oo ka mid ah go'an. lafta gareen oo lagu xanto in saaxiib dhow uu la yahay dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa laga dhowr sugayaa sida uu uga gudbo caqabadahaasi.